asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni ma og tahay. waxaynaan kusoo qaadan doonaa maanta dhowr xayawaan oo la hadlay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo kana mid ahaa mucjisooyinkii nebiga. qodobka koowaad, awrkii reer ansaar. sida ku soo aroortay fii sunani abi daawuud iyo musnad imaamu axmed ayaa waxay ka soo warinayaan saxaabiga cabdillaahi bnu jacfar radia allahu canhuma inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin uu galay beer uu leeyahay nin reer ansaar ah, waxaana ka hor yimi nebigii ilaahaye moxamed sala allahu calayhi wasalam awr oynaya oo ciyaya. dabadeedna nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilmadii ayuu ka tirtiray, waanu aamusiiyey, waanu dejiyey awrkii. markaasuu wuxuu dhahay, yaa iskale awrkan? waxaa yimid wiil reer ansaar ah, wuxuuna yidhi, aniga ayaa iskale rasuulkii ilaahayow. nebigii ilaahayna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ilaahii ku siiye awrka kan miyaanad uga cabsanahaynin? mayeedhaankan wuxuu iiga cabanayaa inaad gaajaysiisid oo aanad dishid. sala allahu calayhi wasalam. qodobka labaad, mascagalaydii la hadashay nebiga sala allahu calayhi wasalam. imaamu tabari waxa uu soo saaray xadiis uu ka soo warinayo cabdillaahi bnu cumar, wuxuuna yidhi, maalin nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo la fadhiya koox ka mida saxaabadiisii ayaa waxa soo qaabilay nin reer baadiye ah oo soo ugaadhay maskacagalay go-iisa ku sita. ninkii ayaa dadka weydiiyey, waa kuwama kooxdani? waxaa lagu yidhi, waa nebi maxamed iyo saxaabadiisii. ninkii ayaa yimi oo wuxuu dhahay, maxamedow dhegayso, haddii aanay qabiilkaygu aanay igu xaman lahayn inaan ahay nin degdega waan ku dili lahaa. kadibna cumar ibnu khadaab ayaa kaco ku yidhi, rasuulkii ilaahayow ii ogolow kanaan dile. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi, ninkii soo dhowow. ninkii wuxuu yidhi, laata iyo cusaan ku dhaartee kuma rumaynayo weligayo. dabadeedna intuu maskacagalaydii ka soo saaray go-iisii ayuu ku dhex tuuray meeshii oo wuxuu yidhi, mascagalaydaas oo ku rumaysa mooyaane weligay kuma rumaynayo. nebigii baa la hadlay maskacagalaydii oo ku dhahay, maskacagalayow. waxayna tidhi maskacagalaydii iyadoo ku hadlaysa hadal waadix ah oo afka carabiga ah, waan ku ajiibay, waanan kugu barwaaqoobay rasuulkii ilaahayow. wuxuu dhahay nebigu sala allahu calayhi wasalam, maskacagalayay anigu yaan ahay? waxayna tidhi, waxaad tahay rasuulkii ilaahay ee uu soo diray rabbiga caalamiintu, waxaana tahay nebigii ugu dambeeyey, waxaana liibaanay ciddii ku rumaysa, waxaana hoogay ciddii ku beenisa. ninkii reer baadiyaha ahaana halkaas ayuu shahaadadii iyo kelimadii xaq ahayd uu ku dhawaaqay, isagoo yidhi, laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah. taasina waxay ka mid ahayd mucjisooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam. xadiiskan oo culummada qaar ay badankoodu ku tilmaamaan sanadkiisu inuu daciif yahay. qodobka saddexaad, deeradii la hadashay nebiga. wuxuu soo saaray bayhaqi iyo kayrkiiba in nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo maraya meel saxaro ah uu maqlay cod leh, yaa rasuul allah, yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahayow, rasuulkii ilaahayow. kadibna nebigii ilaahay wuxuu fiiriyey hareerihiisa, waxna wuu arki waayey. ugu dambayna wuxuu arkay deera yar oo la hadlaysu nebigu sala allahu calayhi wasalam. waana ku soo leexday, waana u dhowaaday, waxaanuu ku yidhi, maxaad u baahan tahay? deeradii baa waxay tidhi, rasuulkii ilaahayow, waa lay xidhxidhay, waxaana in leeyahay 2 carruuroo yaryar. waxaan doonayaa inaan soo nuujiyo, buurta dushoodana way saaran yihiin, ee waan soo noqonayaa iyo xadhigayga fur. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, miyaad soo laabanaysaa? waxay tidhi, haa, waan soo laabanaya, haddaan soo laaban waayana ilaahay hay cadaabo. deeradii yarid xadhkihii baa laga furay, buurtiina way tagtay, wayna soo nuujisay ilmaheedii, kadibna way soo noqotay. nebiguna sala allahu calayhi wasalam halkii buu ku xidhay, waxaana yimi ninkii lahaa oo nin reer baadiye ahaa. wuxuuna dhahay, rasuulkii ilaahayo, miyaad u baahan tahay? wuxuu yidhi, haa. kadibna nebigu sala allahu calayhi wasalam waa la siiyey, waana sii daayey, wayna oroday deeradii yarayd oo ashahaadanaysa oo le laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah. xadiiskan oo duruqyo badan ku soo arooray waxaa daciifiyey imaamu albani, kuna soo saaray silsilada daciifka ah ee imaamu albani. qodobka afaraad, shimbirtii la hadashay nebiga sala allahu calayhi wasalam. cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi, mar annagoo la soconay nebiga sala allahu calayhi wasalam safar ayaa waxaan soo marnay geed, waxaanan qaadanay shimbir dhasheedii.
kadibna waxaa timi shimbirtii oo duulaysa iyadoo cadhaysan waxayna la hadashay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna dhahay nebigu sala allahu calayhi wasalam tan yaa kaga argagixiyey oo ka qaatay carruurtoodii waxayna dhaheen saxaabadii annaka ayaa qaadanay wuxuu dhahay nebigu sala allahu calayhi wasalam u celiya xadiiskanna waxaa soo saaray abu daawuud dhammaan axaadiistaas iyo warkaasoo dhanna wuxuu tilmaamayaa mucjisadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay naxariistiisii iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha yeelo isaga iyo ehelkiisii saxaabadiisii iyo